waxay burburiyeen shirkadii isgaarsiinta Hormuud ka horna waxay sameeyeen bililaqaysi baahsan oo hantidii shirkadda Hormuud ay lahayd wixii qaadmayay waa qaateen oo waa bililaqaysteen wixii cuslaa oo ay ka mid ahaayeen matoorada isfici guryo qaali oo meesha ka dhisnaa solar system meesha lagu sameeyay birti dheerayda anteenada ahayd intaba waxay ku xireen qarax oo ay burburiyeen waxa inta dheer ay sameeyeen ceelashii inay ku shubaan sun ay dadka iyo dunyada cadayeen dad dhalinyaraha xoolo jira jeer ila aadeen dalka Kenya iyo Soomaaliya waxaan leeyahay dambiile Axmed Maxamed Islaan arinta ayada dadka lagu adeeganayo shirkadda burburiyay weeyo waa maamulku sheegiisii deegaanada Dhoobleedi xasaanka u ahaa ama horgalka u ahaa dawladda Masiixiga dawladda Kenya waxaan leenahay waa in calaaqaadka loo jaro dambiilayaashana lala xisaabtamo hay'adaha ku shaqale awal babaal madow ay ku qornaayeen waxa ay geysteen lagu wargeliyo hay'adaha ku shaqale ee cadaaladda dhibaato argagixisnimo ciidamada gafuur culus Kenya 14 bishii koowaad 2026 waxay ka geysteen gobolada Jubbooyinka ciidanka bidoodka Kenya 14 January 2026 waxay ka soo gudbeen xuduud beenaadka deegaanka Diif waxay u soo weecdeen dhinaca gobolka Gado deegaanka Dhuyac Garoon ee hoos yimaada degmada Baardheere ee gobolka Gado shirkadda isgaarsiinta Hormuud center weyn oo ay ku lahayd oo xiriirin jiray degmooyinka Baardheere Ceelwaaq Afmadow Bu'aale meel istiraatiiji ah ku taalay ayaga oo kaashanaya maleeshiyooyinka maamulku sheega deegaanada Dhoobleedi iyo Diif waxaa la bilaqaystay agabkii iyo hantidii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay meesha ku lahayd gurihii iyo matooradii iyo birta cuslayd iyo gaadiidkii meesha yaalayna waxaa lagu xiraa qaraxyo sidii argagixisadii oo waa la burburiyay meesha waxay ka sameeyeen wax aadaminimada halis ku ah waxay sameeyeen warabiyoodyo dadku ay ka cabi jireen ku yaalay deegaanka Dhuyac Garoon ee hoostaga degmada Baardheere in sun lagu shubayo ceelashii si dadka iyo dunyaduba ay ugu halaagsamaan halis u galaan waa mahadsantiin ma ciidamada Kenya ayaa burburiyay xaruntii Hormuud ee ku tiila halkaasi sidoo kale tan ceelashii dadka isticmaali jireen sun ku shubay sidaa weeyo ciidanka Kenya waxay burburiyeen shirkadii isgaarsiinta Hormuud ka horna waxay sameeyeen bililaqaysi baahsan oo hantidii shirkadda Hormuud ay lahayd wixii qaadmayay waa qaateen oo waa bililaqaysteen wixii cuslaa oo ay ka mid ahaayeen matoorada isfici guryo qaali oo meesha ka dhisnaa solar system meesha lagu sameeyay birti dheerayda anteenada ahayd intaba waxay ku xireen qarax oo ay burburiyeen waxa inta dheer ay sameeyeen ceelashii inay ku shubaan sun ay dadka iyo dunyada cadayeen dad dhalinyaraha xoolo jira jeer ila aadeen dalka Kenya yaa ku gacan siinayo markaa in ay sidaasi ay sameeyaan maamulka Kenya ee fariisimahooda uu yahay gobolka Gado waa maasantahay waxaan rabaa inaan ku saxo Kenya waa dal jiro caalam giirgiira leh bidoodka xaasibadiisu Nairobi tahay gobolka Gado ciidamada Kenya ee ku soo duulay waa laga saaray dhammaantii ilo inta badan gobolka Jubbada Hoose markii degmooyinka Afmadow iyo Kismaayo laga reebo kaanu ka yimid gudaha Kenya degmooyinka Gaarisa iyo Wajeer buu ka yimid iyo xuduudaadka yaa gacan siinayay waxa gacan siinayay sida warqabto Kenyaanku haysta oo murtazaqina kuwaas oo ayagu ay doonayaan inay dalka ku qabsadaan haddana ku soo haray degmooyinka Afmadow iyo Kismaayo ee laga saaray gobolka intiisa kale waxaan rabaa inaan halkan kaaga sheego ciidamada bidoodka Kenya iyo ahaan dawladda ku sheega Nairobi markii la joogo xuduud beeraadka ma aqoonsano dawladnimada Soomaaliya deegaanka PB1 ee Mandheera ee gobolka NFD gumeystaan iyo balad xawa u dhaxeeya laga bilaabo ilaa Diif lagu geeyo Kenya ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya wax wada shaqeynaa male
hadday tahay la dagaalanka argagixisada hadday tahay isdhaafsiga xogta hadday tahay sugidda amniga labada shacabka Kenya ay guumaysay shaqaysayaal oo ayagu ay hubeeyeen oo ay tababarteen kuwaasoo hadda ku sugan gobolka NFD qaybtiisa County Mandera ee gudaha dhulka ay guumaysato iyo degmooyinka Afmadow iyo Kismaayo labada deegaan ee Diif iyo Dhobley maleeshiyaadka joogay ayagu ay tababartaan ku gacan siinayay bilaqaysiga iyo burburinta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee meesha la yiraahdo Dhiyac Garoon ee hoosta degmada Baardheere sida aad sheegtay ciidamada Kenya dad ayay afduubteen sidoo kale taceelkii ay biyaha ka cabayeen dadka shacabka sun ayay ku shubeen shirkadii isgaarsiinta ee halkaasi ku tiila waa ay burburiyeen xogahaas oo dhan mala socodsiiseen dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waa maasantahay jira dalkan kama jiro haddaad ka wada hadee dadkaas dalka u qabsanayo dowladnimada Soomaaliya xana aqbaan u leeyahay waxyaha ay khusay su'aashaas jawaab Soomaaliya waxa dowladda Soomaaliya ay golaha wasiirada inta ay khusayso wala socodsiinay erayga Jubbaland waxaan ku leeyahay qaaf rabbuka naftayda taadaba waxaan uga digayaa khayr wadanimo Jubbaland haddaad la joodo dhulka iyo dadka waa sidoodii haddaad la joodo dadka kalbusayka ay carabiyeysteen Axmed Madoobaha qarandiidka ee argagixisada uu yahay haddii waxa dalka iyo dadka burburinayo ama lagu qabsanayo dalka in lagu marka taasan kale maxay tahay marka hadda xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii ku dhaqnaa deegaanka ay dhibkaasi ay ka dhacday waa degmada Afmadow ka mid ah gobolka Jubbada Hoose degmada Bu'aale xarun goboleedka Jubbada Dhexe degmada Baardheere degmada Ceelwaaq inta u dhaxaysa dadkii shacabka ah ee Soomaaliyeed joogay muddo ka badan 34 saacadood noloshoodu waxay ku jirtaa halis hooyada u mushay iyo cunuga saqiirka ee caanaha loo gadayo iyo baabuurka shidaalka lagu shubanayo meesha biyo dhaamin baa ka jirto xoolihii Soomaaliya oo dhanna meesha joogaan intii ugu badnay sababtoo ay tahay waa dalka waa laga waaya markii laga reebo intaan ku sheegay afarta degmo dhulka u dhaxeeyo sida Faafaxdhuun Cabdikhayr Gariley Daashimbir Toosiley Haracali Lowdaar Madaxweyne dhulkaas waa dhulkii uu roobka dayrta ka da'ay gobolada Baay iyo Bakool Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Shabeellada Hoose dadkii deganaa xoolaaleyda ah ee Soomaaliyeed halkaas isugu tagay dadka Soomaaliyeed lacagtoodu waa baabaaday fiisiga ku noolaayeen meesha waa dhul ay go'aan oo booyada laga dhaansadaayo booyadii la dhaamin jiro ama webiga laga soo dhaaminayay ama degmooyinka fogfog biyaha looga soo qaadayay xiriir ma leh wax lagu kala gata ma leh arrin masiibo qaran ah meesha ka taagan loona baahan yahay hay'adaha ay khusaysan iyo kuwa xuquuqul insaanka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooduba inay ku baraarugaan mar haddii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee wax lagu kala gadanayo dadka lacagaha iyo sarifka oo hay'adda la isku maqlayeen la burburiyay shacabkii Soomaaliyeed ee gobolada isaga soo guuray sanadka dayrta meesha u tagayna halka uu marayo ceelasha biyaha ahna sun lagu shubay ugu dambeyntii maxay tahay marka fariinta aad u dirayso dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kenya dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay dambiile Axmed Maxamed Islaan arinta ayada dadka lagu adeeganayo shirkadda burburiyay weeyo waa maamulku sheegiisii deegaanada Dhobley xasaanka u ahaa ama horgalka u ahaa dawladda masiixiga dawladda Kenya waxaan leenahay waa in calaaqaadka loo jaro dambiilayaashana lala xisaabtamo hay'adaha ku shaqo leh awal babaal madow ay ku qornaayeen waxa ay geysteen lagu wargeliyo hay'adaha ku shaqo leh ee cadaaladda dawladda Kenya waxaan leeyahay imaaraadku waa in calaaqaadka loo jaro soo frontier madax banaanida ay awal ku xadgudubtay haddana nasadii bini'aadanka iyo arrin aadaminimo oo masiibo ay sameynayaan dawladda Kenya waxaan leenahay waa nool lahay ma aanan dhibaan dhulka iyagana ma dhici kartaan waa soo joognaa dhibka aad samayseen idinku noqon doonaa mushkilad gudihiina ku noqon doontaa insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay Cornel Aadan Rufle